صندوق موسى ودكتي بورما سيلع لوهيا دلا ودكتي هدي عد بورن لو ريدو والله ومد الصوماليد oo dhexdeeda dad ka takooran oo doqma oo liita oo hablooga la guursan baan noqonaysa sidoo kale waxa ay farayaa in la dagaalamo ma aha jidka kaliya ee wax lagu saxo waxa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiiguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin farayaa waa inaan muuse codkeenna kaga aarsano isaga iyo kuwa la midka waa in codkiinu 180 kun ee coday yaala muuse maanta laga codeeyo dawladnimada iyo heshiiska bulshada darteed waxaan u dul qaadanay laba wiil oo ka hore ay dawladii Soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalkii ka dambana ay sanam dishay mid waxa la yiraahdaa aabaha wad xusu kartaa midna ma xusu kartid bal ma soo wada qaadi kartid waan u dul qaadanay doqornimo loo qaato waxa la marayaan la yiraahdo qof aan sanahayn badalka loo dooran maayo qof aan sanahayn Soomaaliland ma la maraya halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno waan ku cildaya waxaan leeyahay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waan sheegay hadda bareeri dilisaan hadda afka soo duubanaysaan diyaar baa idada xarigaygu waxa laga lahaa ujeedooyin way bi xukuumadda ku lahayd waxa la doonayay in awda laga rido colaad lamida tiilas caanood baa la doonayay waxa la doonayay in lagu helo cimri dheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido waxa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta dooda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dambi aan galay ma jirin dambi aan qaran ka galay ma jirin dambi aan qof ka galay oo aan xari ku muteysan karay waxa la doonayaa waa kuma maxamed abi maxamed abi raba muxuu doonayaa bal isweydiinaya waxaan u sheegayaa ma yihiin nin aragtida uu qabo xarig yaaga jugleyn uga tanaasuli kara waan ugu celinayaa in badanna waan u qeex ma yihi nin dagaal loo haliilayo iyo dib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liigama heli kara taana axmed abi waxaan aaminsanahay aragtidii Mahatma Gandhi baan anu aaminsanahay in badanna warbaahinta way iga wadiga maqashan anu waxaan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinaan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daay inaan u dhintaan jecel laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidaan aaminsanahay waayo hadduu qof doonayo inuu qof dilo waa dilaadee laakiin nooleeyo ma sidaa darteed aanu dadku inay nolol helaan baan doonayaa taasaan u taaganahay in aniga la dilay waan ogolahay waxaan leeyahay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waan sheegay hadda bareeri dilisaan hadda afka soo duubanaysaan diyaar baan ahay haddii ay sii socoto ku tumashada sharciga iyo tacadigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbaya ay istifaacdo diinta islaamkana saawku qofku istifaacaya walaalayaal dan yarta ayaan qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo caadifadaydu inta liidata ay la jirtaa siyaasadaydaase aqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshuna ma hogaamisan siyaasadayda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeedo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qaybin qabiil iyo xaafad waxaan doonayaa dal aan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan kaliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa dal isla xisaabta ku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxa iga maraga sida aan dalkiyo dadka ugu shaqeeyay ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay gabiga afkuriyo ku soo gabagabeynaya inta waxa leeyahay yey noqon baahidu baqayo ana riday baga iyo ku faafaan baacsa iyo tafiirgo ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabidii
han bukooday baantii bulsho liicda kicinteed intaana afguriyaa loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee Mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin mas-uul hantida ummadda boobay oo la xidhay kuma jirin mas-uul qof shacaba si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyey ee ummadda si cadaalad u xukumi waayay la xidhay kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jabiyey kuma jirno xabsiga Mandheera qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn waxa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaarkood dulmiyo cadcad oo dalkiisa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasana tusaalaydu ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer wadal baran gudbayaan la hadlayaa muuse xariga maxamed abiib maanu ii jeeday mise reer wadal buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda cadaynaya muuse oo boorama jooga inuu xarigayga amro ujeedda nooca ayuu ka lahaa maaniga ayuu ii jeeday mise reer wadal ayuu jeeday muuse wuxuu jeeday reer wadal buu jeeday waayo xarigaygu wuxuu amri karayay isagoo Hargeysa jooga wuxuu amri karayay isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada joogu amri karayay muuse iyadoo laga sugayay inuu raali gelinayaa apologize ka bixiyo godobtii iyo dambiguu ka galay guud ahaan reer wadal oo dhan ee uu ku sameeyay ugaaskoodii xabadda nool la dhacay markuu boorama tagay halkii apologize laga sugayay wuxuu yiri wardada apologize u qalmama tiidine kan kale meelaan ka hadlaa waan xirayaa amar buu soo bixiyaan u xiray sidaa darteed aniga ma jeedin idinku idin jeed wuxuu ahaa xarigaasi waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inuu aniga xidhan maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxbana idinkama baahnin cod haddaan idinka baahda bay ahayd waan idinka iibsan ama xoog baan idinkaga qaadanaya markaan kuwiinna wax garanaya xidhxidho ujeeddada taasina waxay caddaynaysaa inuu reer wadal u jeeday bay caddaynaysaa un aniga ii jeedin haddaan wax intaa ka badan idinka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baan idin maalaya waa garanayaayo kolba doqon baan boorima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaan soo qaadanaya wixii noole aragtideeda diidana dhegtaan ka dhufanayaabay taasina waxay caddaynaysaa inuu muuse aniga ii jeedin oo reer wadal u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanaynba wuxuu idiin samaystay yidhi wuxuu ujeeddaa wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gef kasta oo aad galayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqaynaya ugu dambayntii reer wadal waxaan leh waad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isku nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaal uu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dheer iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xidhay maxay reer booraba u hadli waa u mudaharadi weyn anaa diiday anaa ku yidhi fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalean ka taagana muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaynu doonaynaa maalinta uuna mudaharaad doonaynin waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taana ugu mahadsantihiin walaalayaal reer booromow reer awdalow taariikhda dulmiga iyo qoorjabinta ee dadkeennu anigayguma bilaamin waxaa tusaalaydu ku filan in madaxweyne muuse biixi uu maalin cad uu halkaa ugaaskini xabad nool kula dhacay qofna kama hadal dadka kale jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo jeeday madaxda dhaqanka ah ee beelahaanu dalkan wada leenahayna kamay hadal mararka qaar waxaan kala garan waayaa muuse iyo kuwa dibadda jooga waan kala garan waayaa waxay ahayd inaa apologize dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysi markay dhibaato ka dhacdo saddexda magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacaan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadka dhexdooda markay dhibaato dhacdo